maalin dhow hee haddii alla idmo aad maqli doontaan maxaan maqli doonaa war weyn oo muxuu yahay war macaan na dhadhansiiya hadda warka hadduu macaan yahay war qiimo badan oo farxad leh waan sugi la'nahay muxuu la xiriiraa oo la xiriira dhinaca dhaqaalaha haddii alla yidhaah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa xilligan waxa uu shir muhiim ah uga socdaa madaxtooyada dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamsana waxa ay horay noogu yiraahdeen maalin dhow hee haddii alla idmo aad maqli doontaan maxaan maqli doonaa war weyn oo muxuu yahay war macaan na dhadhansiiya hadda warka hadduu macaan yahay war qiimo badan oo farxad leh waan sugi la'nahay muxuu la xiriiraa oo la xiriira dhinaca dhaqaalaha haddii alla yidhaah way waa markaan shiidka ka bixi lahayn dadka Soomaalida inta badan waxa isku diraya waa duruufta haddii qof walba shidaal inta dalka u soo baxo qof walba shaqadiisa iska qabsado xataa siyaasadda iyo dawladda lama rabin dadkan siyaasadda kuwada qajajacle waxa keenaya shaqo kale ma hayaan warkan oo filla Soomaaliya isaguna ka soo baxay waxa lagu yiri labada madaxweyne ayaa kulankooda kaga arrinsanaya ilaalinta madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya guulaha laga gaaray saaminta kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya kor u qaadida iskaashiga labada dal iyagoo waliba dhawaan shir jaraa'id oo mideysan wada qaban doonaan labada mas'uul halkaas waxba la socda warkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu noo sheegayeen ayaa halka ku jira kheyraadkii badeena iyo shidaalkiiba laga hadli doona sida xoguhu noogu soo gaarayaan dhawaan Turkiga waxa ka soo dhaqaaqi doona markab sida xoguhu sheegayaan waxa la shaaci doona kheyraadka la rabo dhawaan in la soo saaro iyo shirkadii baaritaanka sameysay waxyaabihii ay ku soo guuleysatay sidoo kale dalka Turkiga waxa ka soo dhaqaaqi doona markabkii qodin lahaa oo qoditaanka u dhaqaaqi lahaa waxa jira heshiisyo cusub oo la saxiixanayo oo ku saabsan arinta soo korortay iyo badda Soomaaliya sidii amnigeeda loo ilaalin lahaa hadaba adigu sideed u aragtaa in dadkan Soomaalida kheyraadkooda loo soo saaro awoowayaasheen ka dhintay aabayaasheen ka duqoobe annaguna wadadii baan saaranahay ilmaheenu ha intifaacsadaan in loo soo saaro aragtida waa inuu muhiim xagga hoose faalada nugrab wassalaamu calaykum